السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. qodobada warka subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxda Soomaalida oo maanta kulan ku yeelanaysa magaalada Muqdisho. dad hor leh oo 24 saac ay la soo dhaafay COVID-19 ugu geeriyooday Soomaaliya. dowladda Soomaaliya oo ka qayb gashay shir caalami ah oo looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha. Puntland oo mar kale soo saartay go'aano lagu xakameynayo lacagta dollarka ee telefoonada la isugu diro. dowladda Qatar oo Soomaaliya u tababaraysa ciidamada la dagaalama nabadiidka Al-Shabaab. dowladda Yemen oo Soomaaliya ka codsatay in la sii daayo kalluumaysato ku xiran mudug. wararka dibaddana waxaa kamid ah dalka Suudaan oo 18 qof oo rayd lagu dilay. وكما warwaageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan waa hagaag dhageystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhageystayaal waa 6 bisha afraad ee Abriil sanada 2021 intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen dhageystayaal qodobadii ugu door karoona warkayga subaxnimo haatan u diyaar garooba dhageystayaal dhageysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shir u dhaxeeya madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo waliba maamulka gobolka Banaadir. shirka maanta ayaa la filayaa in looga heshiiyo ajandaha shirka soo socda iyadoona isfahanka shirkan hordhaca ah looga gaaro ay ku xiran tahay jawiga uu ku furmi doono shirka rasmiga. shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo maamulka gobolka Banaadir. beesha caalamka ayaa dhankeeda soo dhaweysay qabsoomida shirkani oo lagu wado in lagu dhameeyo dhamaanba isfahan waaga ka dhex jira madaxda dowladda dhexe dowlad goboleedyada ka hor shirweynaha qaran ee wadatashiga doorashada. sidoo kale beesha caalamka ayaa cadaadis weyn ku saaraysa dhamaanba dhinacyada Soomaalida inay heshiis buuxa ka gaaraan doorashada oo si weyn uga dib dhacday waqtigii qorshuhu ahaa inay dhacdo. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta coronavirus ku sheegtay in la diiwaangeliyay 125 xaalado cusub oo COVID-19 24 saac ee la soo dhaafay. 11 qof ayaana u geeriyootay waxaana ka bogsatay 50 ruux. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda xilgaarsiinta Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa cadaysay in xaaladaha cusub laga diiwaangeliyay Somaliland 62 kiis oo cusub, Puntland 32 kiis oo cusub, gobolka Banaadir 20 kiis oo cusub, Jubbaland 9 kiis oo cusub iyo Galmudug oo 2 kiis. 70 kamid ah bukaanada la xaqiijiyay waa rag halka 54 ay yihiin dumar. tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay guud ahaan 12908 kiis waxaana ka bogsatay 5017 ruux. guud ahaan 568 ruux oo kale ayaa markaasi u geeriyootay. Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa bulshada ka codsatay in ay qaataan talooyinka caafimaad ee laga helayo khubarada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurkan oo dadka ku keeni kara maadaama uu mar kale soo laba kacleeyay halista cudurka COVID-19. wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda xilgaarsiinta Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa bulshada ku baraarujisay inay qaataan talooyinka looga hortago caabuqa COVID-19
oo markaasi ugu horeeyo talaalka COVID-19 ee AstraZeneca kaasi oo haatan si habsami leh uga socda gudaha dalka. dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa aalada fogaan aragga uga qayb galay shirka sanadlaha ah ee IMF iyo Bangiga Adduunka kaasi oo si gaar ah kulamo ay uga yeesheen wasiirada maaliyadda ee dalalka Afrika iyadoo lagu guda jiro shirka sanadlaha ah ee IMF iyo Bangiga Adduunka ayaa maanta waxaa markaasi noo suura gashay ka qayb noqono wasiirada maaliyadda dalalka Afrika in si gaar ah u shiraan ayuu yiri wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa mar uu ka hadlayay xaaladda dhaqaale ee dalka yiri waxaan wasiirada la wadaagay warbixin ku saabsan habeynta maaliyadda iyo sare u qaadidda dakhliga gudaha sidoo kale waxaan ka warbixiyay qaabka ay dawladdu uga falcelisay la tacaalidda xanuunka COVID-19. guddiga Puntland wuxuu la saartay wax ka qabashada qiimo beelka ku dhacay lacagta shilin Soomaaliga ayaa soo saaray go'aano ku saabsan in aan la isku diri karin wax ka yar $1 lacagaha dabaysan ee mobilada. guddigu waxay taasi beddelkeed shirkadaha bixiya adeegani ku amreen inay sameeyaan lacago shilin Soomaali danabaysan oo doolarka oo dadweynaha u suura gelinaya inay kaga maarmaan sintiyadii doolarka ahaa ee la isku diri jiray. wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Faarax Cali Shire oo saxaafadda kula hadlayay Garowe ayaa sheegay caqabado soo laaftay inay markaasi ku kalifeen in mar kale guddiga soo celiyo go'aankii lagu joojiyay isku dirka waxa ka yar $1. wasiirka maaliyadda Faarax waxa uu sheegay caqabadaha soo laabtay inay ka mid yihiin in waalidiintii ay waayeen wax ay siiyaan carruurtooda dugsiyada wax uga barta kuwaasi awal hore jeebka u gelin jiray lacago shilin Soomaali ah si ay ugu cunaan xilliga breega balse markii shilin Soomaaligii uu istaagay ayaa la dareemay culeyskan. awaamiirta guddiga ka soo baxday ayaa waxaa saameyn ku yeelan doonin koonfurta Mudug Sool iyo Sanaag si loo ilaaliyo tartanka shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeegga. inkastoo shirkaduhu sameeyeen shilin Soomaali danabaysan haddana ma suurta gelin in dadweynuhu isticmaalaan iyadoo loo sabaynayo bulshada oo aan faham buuxa ka haysan iyo walaac markaasi laga qabay aaminaadda adeeggan. lama oga in shirkadaha isgaarsiintu inay fulin doonaan abaamiirtani. safiirka Soomaaliya u jooga dalka Qatar ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar u jooga dalkaasi Qatar. safiirka dowladda federaalka Soomaaliya oo u jooga dalka Qatar Danjira Cabdirasaaq Faarax Cali Taano oo uu heliyo qaybsanaha arrimaha ciidanka ee safaaradda Generaal Maxbuub Xasan Xabaade ayaa kulan waxa ay la qaateen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar aqoon kororsi u joogay maalmihii la soo dhaafay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. saraakiishan oo tababarka soo dhameysay ayaa dhawaan ku soo noqon doona gudaha dalkeena iyaga oo ka qayb qaadan doona dagaalka lagula jiro nabadiidka Al-Shabaab. dhinaca kale wasaaradda kalluumaysiga ee dowladda Yemen ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan yihiin xukunka lagu riday 31 kalluumaysato Yemeniyiin ah oo isbuucii hore lagu qabtay iyaga oo ka jilaabanaya ama ka kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya amar la'aan. wasaaradda kalluumaysiga ee Yemen waxa ay ka codsatay dowlad goboleedka Puntland in laga sii daayo maxaabiistaasi oo lagu xukumay min $700 iyo in lala wareegay doonihii iyo waliba kalluunkii saarnaa.
inkastoo fariinta dowladda Yemen ku socotay Puntland haddana maxaabiistaasi waxaa xukunka ku riday maxkamadda gobolka Mudug ee Galmudug iyadoo kalluumaysatadaasi laga soo qabtay inta u dhaxaysa xeebta Hobyo iyo waliba Harar Dheere maxkamaddu waxa ay xukuntay 31 kalluumaysato halka 8 kale da'doodu aad u yareed la sii daayay dhinaca kale wasaaradda kalluumaysiga ee dowladda Yemen ee qaramada midoobay aqoonsan tahay waxa ay ka codsatay maamulayaasha Soomaalida in la sii daayo kalluumaysatadaasi laguna wareejiyo doonihii ay wateen وهجاج halkaad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland markan inta aanan u guda gelin wararka dibadda waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha ee warka subax waxaana la diyaaray wariyahayaga Daawud Cusmaan Cali Al-Ghazali subax wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax saakal waxaanu ku soo qaadanaa dhageystayaal saaxiibayaal kulamada xalal la ciyaaray kulamadaas oo ah kulamada xiiso badan xal waxa wada ciyaaray kooxaha Everton iyo waliba Crystal Palace ayaa wada ciyaaray gool iyo gool ay ciyaartada ku soo dhawaatay Wolverhampton Wanderers iyo waliba West Ham United 3 gool iyo 2 gool waxa ku adkaatay kooxda West Ham United oo Wolverhampton waa la garaacay sidoo kale iyana la liigaha kulan ayaa laga ciyaaray oo ay ciyaartay kooxda Barcelona kulankaasina Barcelona hal iyo ever ayay ku badisay Real Florida ayay ku garaacday hal gool iyo ever kulamadaasi ayaa xal la ciyaaray Usman Dembele ayaana goolka u saxiixay kulamada Champions League ayaa caawi jiray dhageystayaal saaxiibayaal kulamada aad u xiiso badan ayaa la ciyaari doonaa Champions League iyadoo ay wada ciyaari doonaan kooxda Manchester City iyo Borussia Dortmund saacadu markay tahay 4 habeenimo sidoo kale Real Madrid iyo Liverpool ayaa wada ciyaari doona saacadu markay tahay isla 4 habeenimo ama 10 habeenimo kulamadaas ayaa la ciyaarayaa oo Champions League oo la sugayay kulamada Champions League City iyo waliba Borussia Dortmund ayaa waxa uu kulan aad u adag oo dhexmaraya Borussia Dortmund iyo City sidoo kale kulanka Liverpool iyo waliba Real Madrid ayaa kulan aad u adag kaas oo natiijo walba laga filan karo dhan waliba marka laga eego iyadoo la sheegayo in uu ka maqnaan doono daafaca Sergio Ramos uu seegi doono kulankaasi yeelkadeeda kulankaasi ayaa Real Madrid waxay doonaysaa inay garaacdo Liverpool dhankeeda waxay doonaysaa inay Real garaacdo way arki doonaa wixii ka soo baxa xubintii ciyaaraha warka subaxna dhageystayaal saaxiibayaal saakay waa inta dib idinku celiyay qaybaha warkii naga haray waa hagaag dhageystayaal markan wararka dibadda dhaqaatiir ku sugan dalka Suudaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 18 qof lagu dilay 50 qofna ay ku dhaawacmeen dagaal galbeedka gobolka Darfur ku dhaxmaray beelo halkaasi wada dega dagaalka ka socda meel u dhow magaalada Janiina ayaa bilowday maalintii Sabtida ahayd wararku waxay intaasi ku darayaan gaadiidka gurmadka degdega oo sidii dad dhaawac ah in la weeraray gobolka Darfur waxa ku yaala xirooyin loogu talagalay dadka ka soo qaxay colaadii lagu hoobtay ee soo bilaabatay 2003 walina waxa gobolka ka dhacay isku dhacay salka ku haya helitaanka dhul iyo biyo dawladda gumeel gaarka ah ee Khartoum waxay heshiis nabadeed la gashay kooxaha mucaaradka ah ee ku sugan deegaanada ay colaaduhu ay ugu badan ay ka taagnaayeen oo ay kamid tahay Darfur warkiisu waxaad kala socoteen idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland dhageystayaal xilligani wanaga inta warkaas waxa halkan idin kala socodsiinayay anigoo ah Kamaal Maxamed Axmed Keenan tan iyo kulankeena kan xiga dhageystayaal hadduu alla idmo waxaan idin kaga tagayaa sidaas nabadgelyo